mudane iyo marwaba inta meesha fadhida magacyadooda la tirin kari maayo qof walba makaanadiisa iyo mansiladiisa wiil iyo gabadh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa ka bacdi munaasabadan oo runtii munaasabad fiican ahayd waxaa ii sharafa inaan ka soo qayb galay xarika jarideeda moolka iyo hoteelka la sameeyey ee isha burca loo bixiyey ee labadaa muwaadin ee saalixii ay ku bahoobeen sharaf bay inoo tahay dhammaanteen kolley nin baa igu yidhi malaa da'daa lagugu dambaysay wasiirradoo da'daa ma qirsani oo dareenkaygu isiin maayo bahal muraayad la yidhaahdo unbaa markaan isyaro hortaagaan arkaa calaamadihii lagu sheegi jiray bidaar iyo tima cadcad iyo wejigoo aad arkaysa wax iyo laakiin dareenkaygu weli ma siin waad weyntay waxaan haddaba leeyahay waa goor dambe halkan munaasabadan waxaynu u nimi inaynu u ducayno oo baarigno labadaa muwaadin ee isxilqaamay ee wixii ilaahay soo geliyey dadkoodii iyo dalkoodii uga faa'iideeyey dalna wuxuu ku muharmaraa marka dadka u dhashay ay u quudhaan inay maal gashadaan ajnabiguna markaasuu ku daydaa dalka matalan jaamac haddaynu ka soo qaadno sida halkan baa laga soo qaaday jaamac asaga waxaan ugu sii mahadnaqayaa bari oo dhan buu soo qurxiyey labadaa iloodee kale markaan qiyaaso midna manaafacaad kama hela baan u malaynaya faa'iida kama soo geline laakiin caynabana wuu qurxiyey waridaadna wuu qurxiyey markaa bari oo had iyo goor galbeedku markuu faanayo la yidhaa meesha waa dhul badanuunoo dad badani ma joogo marka meel walba hodheelaad seexatay iyo meel aad wax ka cuntay la helo dee waa nimco marka hiil waa hiil qaran waa hiil bari waa hiil sool iyo sanaag iyo togdheer intaba uu galay asaga iyo saaxiibkii suldaanka muhiimadda hadalku waxa weeye inaynu ducayno ilaahay ha idiin barakeeyo xoolaha kale alla hadheen iyo waxa halkan ku maalgashateenba xasanaadna waa ka helaysaan mid ifaaya mid aakhiraba shaqo abuur baa samayseen maalgashi iyo dhiirigelin baa samayseen muhiimadda aynu u nimi intaa weeye in lagu daydo weeye nin dibad ka dhegaysanaya iyo nin guda joogaba hadalka munaasabaddu intaasuu ahaa laakiin hadalku berigii hore waxaa la odhan jiray hadalku ducaalaan buu iska tarmaayo muhiimadda intaas haddana meelo badan baa la marmariyey intii dowladii iyo dhaliisheed ahayd ama burce iyo dhaliisheed ahayd ninkii halkan joogay ka hadlay barasaabkii maxamed diiriyaxayd magacii horena laga bedelo daljir loo bixiyo barasaabka ah waa ku kalsoonahay inuu difaaca burcana difaaci karayo xagga qarannimadana difaaci gobolkiisa ka difaaci karayo waaba loo soo xulay burco wuu difaaci karayaayo reer bini iyo reer xuseen ba iska dhalay dee waa labada ku hadhaayoba meeshii laakiin waxaan leeyahay qolooyinkiina imika burco asalka ee degan ee ku sii hadhaayoobay haddii aniga maxamed kahayn aanu meesha imika degannahay burco looma hunguroodeen dadkana wax badan bay berigaa dheerayd wax fara badan ayay berigaa dheeraan jirtay waxaad tirinaysaa oo dhan waa taariikhdii berigii hore ee ay deegaamada imika hawdka ay tageen midna waa idiin sheegayaa isku ciilkaambiyana burcona waa wanaagsantahay hargeysana idinkaa qabsaday reer burcow berberena idinkaa qabsaday dalkiiba idinkaa haystee halkii laydinkaga hinaasinaa idinku xaggee ka hinaasteen daaraha ugu dhaadheer hargeysa busineska ugu badan dhaqaalaha ugu weyn guryaha ugu badan bariyo galbeedba waa u dhaafteen hargeysa marka haddaan deegaankii hargeysa idinka idinku hinaasin idinku xaggee hargeysa kaga hinaasteen dee intii caasimadan hadda ogaada oo shalay waxaynu camiri jirray xamar oo ogeydeen inayn waxaynu iska kabalaan kaga nimi laakiin dee hargeysa waa wax dhow lugbaaba lagu gaadhayaa waana magaaladeennii berberina waa la mid booramaa timi anigu reer booramo la saaxiib baanoo reer booramona waa nahay markaan tagense waxaan weydiin doonaa halkan a ka cabateen burco xaggay igu hunguroodeen macnihii halkii ay kaga jirtay qarankee ahayd caasimad xigeenka waan yaro qiyaasay intii aan fadhiyo waxaan isiri wallaahi si kale ugumay hunguroon waxay ugu hunguroodeen burca laba burcay noqdo bariyo galbeed baa loo bixiyey marka iyaga waxaan soo weydiin doonaa ma qolada bariba u hungurooteen mise qolada ayaa la mid tihiin mise qolada galbeed intaana anaa fariintaana jawaabteeda idinka keenaya waxaanan ku talinayaa togdheer kula talinaya halkan dardaaran badan baa laga geystay war markii togdheer ahayd ee burca ahayd bariyo galbeed ma jirin
waxay ahaan jirtay hawd iyo waqooyi ama oogiyo guban ninba siduu yaqaano oogiyo guban xaggaas laga isticmaalo galbeedka inagu hawd iyo waqooyi baynu dhahnaa faankana adduunyada burco haystay hadday dirir tahay iyo hadday deeq tahay iyo hadday soor tahay iyo hadday xadaarad tahay intaba burco haysatay marka imaka bari iyo galbeed markaa ka dhigteen ee magaaladiina bari iyo galbeed baa u sii wadaana waa yara qiyaasay marka dawladda hoose dambe imanaysa waxaan leeyahay horta magaalada hawd iyo waqooyi ha loo fidiyo haddii aan la daynayn tilmaan jihooyinkana hawdkiiyo waqooyiga khayr badan ee labadaa la baxa bari ha la bixina waxaanan u dooray hawdkana waa la wada degan yahay burco waqooyiga burcana afarta qoloo degaaba way degan yihiin laban baa imakay siraxee markay sidaa noqoto waa la isdhex galay wararta bari iyo galbeed maanta ka bacdi inaga jara xaggii waxqabadkaa timi waddadaas imika markay idiin furantay laam idiin noqoto hargeysa gashaa xaggana mid baynu waqooyi u samayn doonaa haddii alla yidhaah faankii horena wuxuu ahaa iyo isxifaalayntii anigu aan soo gaadhay markaan dee da'daba ku xisaabtamo malaalaynkii dadka waaweyn baa la geliyey reer waqooyi iyo reer hawd baa laysu xifaalayn jiray imika reer galbeed iyo laysu xifaalayn kari maayo dee reer bari waaba isku xanaaqaysaan mar hadday saa noqoto sababtaa reer hawdkana waa la wada deganaa hawdka oo lama kala lahayn waqooyigana lama kala lahayn warbarteennii hore aan ku noqono oo burco horta sidaa ha yeesha baan leeyahay waxaanan leeyahay burco waa nimcaysan tahay qoladayada dawladda ee xagga hargeysa ka shaqaysa ama deegaan imika u noqotay dee waa caasimadeennii oo wixii qaran leeyahay qaybtiina waa la keenayaa laakiin idiin burin kari mayno haddii hoos wax la isugu sheegaya mooji laakiin mikrofoonka dee hanaga canaanina xagga mikrofoonka waxba ka sheegi kari mayno hoos baan wax laysu faraa sababtaa wasiirka caafimaadka haddii aan maqlo xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga burcaha ha lagu wanaajiyo kii caafimaadkuna booramudda la qabanaya markaa taasuna waa xaggii waxqabadka guud ee dalka annakaana lagu dhaliilo laakiin kolley daara dhisi kari mayno beerana samayn kari mayno taa haddiina la weydiiyana waxay noqonaysaa wax soo booba taana nooma ogolidin marka hadalku wuu dheeraaday waana xaflad wanaagsan waana casumad wanaagsan nin wal oo dareen lehiba wuxuu ka fakirayaa midnimada qarannimadeenna guud ahaan dusha inaynu ka wada midowno hoosna u daadejinno matalan axsaabta qaranka cunsur carabka lagama dhowray soomaalida tiraahdaa waxaynu ugu talagalnay inaynu kaga baxno qabyaaladda waynu ku bilownay hadda axsaabtii qaranka ayaa wadda inay dadka qabaa'il u kala saarto waxaynu ku jiraa in qofka musharaxa ah la yidhaahdo war maxaa reerkiinii soo kaxayso odayaashaadimeed cuqaashaadimeeda waxaynu ku bilownay qofka taageerayaashiisa inaynu weydiinno matalan halkan xafiiskii ugu horreeyey xisbi laga furay somalilan markaynu soo noqonnay burcu ahaa ee udubay ahayd doorashadii ugu horreysay waxaanu ku xidhnay shuruudo keen 150 qof oo taageerayaal ku ah oo subscription-ka bixiya oo isku dhex jira marka waxa weeyaan saddexdeennan xisbi bal horta maxamuud iyo malaw iska jeclaan lahaayeen waxaan leeyahay laga guuro 10 sanadood wax yar baa ka hadhay bal xisbiyo cusub oo qaranka isku xidha ha la sameeyo waxaan sidaa u leeyahay maanta anigu kulmiyaan ka mid ahay xisbiga kulmiyaan ku jiro xisbiga xaakimka ah shalayna wadani baan ahaa tii ka horreysayna waxaan ahaa aasaasiyaashii xisbigii koobaad ee dalka laga sameeyo kaygii markuu iga burburay dee sirc ilaahay bado kolba waan igan mid gelaya imaka umana arka xisbiya hagaagsan oo weli uduba kalan daydayaya waxaan leeyahay halkaa qabyaaladda waxayna dilay waxa weeye distoorkii iyo shuruucdii aynu samaysanay kuma dhaqanno axsaabtii qaybkaynu ugu talagalnay inaanay qabiil noqon inaanay gobol noqon distoorkeennay ku qeexantay iyo xeerarkeenna haddana gobolaysi iyo baynu u bedelnay iyo wax la yidhaahdo qabyaalad in reer hebel leeyahay xisbigii markaa ka guuri mayne dee haddaynu mikrofoonadana wax wanaagsan kaga hadalno ficilka xafiisyada iyo guryahana ay wax kala noqdaan bahashii waynu doonaynaa ee dee aynu ku soo celinay sideennii hore amar iyo ismaqalka lahayd ee kala dambaynta lahayd cumaamadahan faraha badanna meesha markaa way ka bixi haddaynu qabyaaladii asalkayd ku noqonno markaa inteennii hore hagaagsanayd aynu isku hogaamin jirray bay noqon doontaa waan idinku badiyay hadalka iga raalli ahaada wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu